السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti waxaan oo wanaagsan halkaad nagala socotaan waa channelka Somali App Channel oo mar walba hadaan oo kaleeta ama mar walba oo idin keena waxyaalo aad u faa'iido badan haddii aad leedahay waxbarashada aadaha tiknoolajiyada iyo wax walba oo ku saabsan tiknoolajiyada hana qaado oo maanta cirkaas isku shareerayso wax walba oo maanta dunida loogu baahan yahay adeegsiga internetka iyo aaladaha social media. maanta waxay idin sidii aad ku baran lahayd luqadda carabiga haddii aad ku dhiban tahay. inta badan Soomaalida waxay inta badan ardayda aan qaasatan waxay dhib ku qabaan barashada luqadda carabiga. maanta adigoo gurigaaga jooga ama mobilkaaga isticmaalaya inaad barato ayaan ku suurto gelin doonaa insha Allah hadduu alle weyne idmo. okay barnaamijka maanta aad ku bari doontaan waa Arabic waaye oo micnaha Play Store-ka ayaad tagaysaa waa ku qore markii aad ku qorato Arabic aniga uu igu jiraa aniga iminka hadda open ayaan leeyahay waa uu install gareysan yahay adiga waxaad leedahay install ayaad leedahay. open aan dhaho markii aan furo wuxuu i keenayaa sidan oo kale ayuu ii keenayaa. aniga iminka oo kale waa markuu halkaan oo ku kaleeto ku keeno horta caadiyan waxaad ka samaysan doontaa akoon ayaad furi doontaa haddii asaga wuxuu ka kooban yahay 6 level oo ka kooban yahay oo bilow iyo dhammaad uu leeyahay. akoonka markii geeskan ayaad taabanaysaa akoon ayaad furanaysaa akoon markii aad furato gudaha markaad sidaan u soo gasho akoonkana aad furato waxaad bilaabaysaa foundation uu leeyahay. foundationkii waa qofka kow bilow oo aasaaska xuruufyada oo ka soo bilaabaya weeyaan. aniga balse waxaan ka bilaabaynaa level 1 ayaan ku dhufsanaynaa. level 1 markaan ku dhufto halkan ayuu i keenay codna wuu leeyahay cod ayuu leeyahay. markuu halkan ku keeno halahan waa cibaan aad si kala dooranayso tahiyatu wa taaruf greeting and introduction waa isbarasho iyo salaan iyo isbarasho. wuxuu faa'iido kale u leeyahay waxaa ka mid ah in uu kugu tarjumi doono ama uu ku tarjumi doono luqadda Ingiriisiga. tahiyo iyo salaan ayaan ku dhufsanay. vocabulary-ga waa ujeedaa erey bixinta ereyada tarxaan bixinta ereyada waaye. iyo conversation iyo test laga qaaday in aad mooday testiga imtixaanka level walba aad ku moodayso. vocabulary-ga markii aad moodo cashirka qaadato tigtaas cagaarka ah ayaa saarmayso halkan ayaad ku dhufanaysaa. aniga hadda waan kasoo gudbay balse aniga waan testi gareeyay. التعارف isbarasho. marka falaartan ayaad ka soconaysaa geeska buluuga ah ayaad ka soconaysaa. السلام عليكم وعليكم السلام أهلا مرحبا صباح الخير صباح النور. markii buluugan soo saaro waad ku dhufanaysaa. السلام عليكم وعليكم السلام. buluuga ayaad ka soconaysaa oo keliya. أهلا مرحبا. markii aad ka gudubto oo intaas aad dhamayso adigoo gudbin ma ka gudbi karto waayo tigtaas oo buluuga oo cagaarka ah waa inay saarmataa waa inaad dhamaysataa ay cadeynaysaa. marka aniga hadda waa ujeedaa testiga waxaa iga saaran quful ayaa iga saaran waayo conversationka sooma dhamaysan. conversationka markii aad tagto waxaad leedahay السلام عليكم. isagaa soo saaraya inaad taabato igu rabo calaykum salaam ay taabanaysaa.
ama cod ahaan وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. اوكي بينك أنت وبين الله هل لك اوكي adiga cod ahaan ayuu kaa rabaa, cod ahaan ayaad u bedeleysaa. قصص لا تكشف marka uu kuu keeno halkan oo kaleeto aan kusoo laabto. okay ما حراك بها السلام عليكم. السلام عليكم. okay adiga markuu kuu keeno waad ku dhufanaysaa, sidaas oo kaleeto ayaad sameynaysaa. jawaabaha noocaas ayaad u bixinaysaa insha Allah hadduu Ilaah yiraahdo. kaliya markii halkaas aad kasoo gudubtana waxaad sameynaysaa waa wada sheekaysan xagga testigan ayaad galaysaa, oo hadda quful ayaa iga saaran aniga inaad casharadii qaadato cadeynayso, meeshaas ayaad ugu bixisaa. okay waan filayaa in aad wax badan aad ka faa'iidi doonto oo baahi carabi haddii aad qabtay waad ka faa'iideysan kartaa insha Allah. waa casharada waa kana saan ayay wax u yihiin. markuu bilaabanayo qufuladaas ay ku xiran yihiin family al-usrata. marka insha Allah warkii ay idinku sii daalinin, waxaan filayaa inaad ka faa'iideysan doontaan insha Allah. sii share garee sida walaalkaaga oo u baahan oo u gaarto. haddii adigana aad ka bogato ama aad ka heshay laagta nala dhaafin, share iyo comment insha Allah. dhiirigelintiina muhiim ayay idin tahay. okay marka dambena waxaan keenin doonaa insha Allah luqadda Ingiriisiga asagoo sidan oo kaleeto aad ugu baran doonta hadduu Allah idmo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.